sub doon oran cirib tirkii markii hore halkii arrintu taagnayd hoos looga digayo guntaba la naga rujirayo wartarnimo marta intii hore tanaa inoo raacday miya wel markaas ayaanu aniga ilaahay ha u naxariistay maxamed xaashi ninkii la oran jiray ninka la yidhaaho inuu cabdi duse ahaa baan jeclay cabdi ismaaciil duse ninkaa macallinkee ina cabdalla kharbuud axmed maxamed xaala ma baanaan badnayn ayaa isu nimi nin la oran jiray cabdiraxmaan maxamed cilmi oo dhintay isaguna oo markaa ma jiraha isaguna waryaale balrabo sidaynu yeelnaa marsana dee wax kale ma yaaliine arrinta tan uun ilaa meelun iska soo horjeesanayno maalin uun inagu isu cataabi maynee war arrinta aynu garanaysa yara dhaqaashino dabeed maxay noqotay weerar iyo dagaal iyo cakaradii waxaa lama hayee war dareenka in magaranaysa la gudbiyo dareenka ayaa loo gudbinaya waa waktigii cabdullaahi waad ogeydeene aan qofna qof aaminayn nin iyo naagtiis aaminayn labadii walaalays aaminayn very complicated at the same time dee mobil ma jirin telefon guri keliya oo telefon ku xidhaan ma jirin mobilena ma jirin gaadiid ma haysan lacag ma haysan zero baan taaganay halkaasaanu grassrootska banaani desertka ayay noqotay wax walba ka bilow okay so maynaan u bereerin in aynu arrinta tan aan sidaa lagu dayn ee ay ka socoto sooma hada wayna shuruuda yeelata arrintan way dee inaga istilayna haddii kale adigoon geed kaa gaadhin adigoon geed kaaba gaadhin bay xaaladda faashil noqonaysa adigoon khalaas ugu dhamaato waxna maad qaban dishay programkii iyo xodhana baabisa wixii dambe soo socdayna dee cagtada marisa waxaa la yidhi dhowr nin yaan waxba loo sheegin dhowr nin yaan waxba loo sheegin qodobadaanu markaa samaysanay waxaa ninka khamriga cabaa yaan waxba loo sheegin ninka naagaha jecel yaan waxba loo sheegin ninka lacagta jecel yaan waxba loo sheegin ninka faanka jecel yaan waxba loo sheegin ninka hadalka badan dhawaan ku dar wale ilaa arrintu bislaato oo ay dee meelaha dabaysha ka helaan iyagu yani cidna ila raggii waa is yaqaanaa waa la iswada garanaya hebel waa la yaqaan hebel waa la iswada yaqaanaa maxaa kale noo raacay waxba yaan la qorin wax qoraaliha haba yaraatee yaanu jirin waa la record garanaya ma jirin totally horta halkaasaanu ka bilownay dabeedna waxay noqotay guri la isugu imanayaa ma jiro markaan dee guriga haddaad hebel la ballanto oo aad tiro gurigan kugu imanaya waxaa dhici karta qaar kale inay fadhiyaan oo dad garanaysa ama waxay noqotay markaa gurigii shaqaalaha mooye cabdullahi saad xusuun tahay berandhihiisii hore markii guriga la furay makhaayadii baa laga sameeyey oo bannaan ahoo iska bacadla yar ah habeenkii marka fiidka ay noqoto ayay soo saari jireen girgiraha iyo dabka iyo waxaasoo halkaasaa shaah laba miisna waa la dhigay laba miis iyo afar kursi halkaas lagu fadhiisan jiray markaanu dhowr goor halkaa ku ballannay ayaana lagu bartay markaasaanu bedelay waxaanu u bedelay kaabadahan gidaarada dhaadhee gidaarkii afsiyoole ka sokeeyey ee beerta ku wareegsanaa gidaarkaas iyo xatabadaha dukaamada la xidho xatabadahooda yaanu fadhiisan jiray halkaasaan ku ballami jiray war waa xatabadii beershii dukaankii xaaji ciise sokor baa xalwad iibi jiray kii ku xigay halkaa saasaan u ballamayna dabeed cabdillah halkaas ayaa horta gunta aanu waxaan ka soo bilownay ee anigu aan ogaa ay ahayd saasay ahayd maxaa loo gudbay markaa way ballaartay arrintii intaa dhinacii kalena dhibaatada way socotay waa tii nairobi iyo xagga lagu dilay waqooyiga
واتي أي دعدي إن اللهم صل على محمد تطبضن لحيره dhibaatadii way iska socotay intaan dagaalkii dhicin cadaadiskii waqooyiga lagu sameynayay wuu badnaa labadii iskuul dad badan oo sibala la xidho aynu garanayno absolutely waatii dilkiina caynaashiyo inqalaabkaasuna dhacay yimid صح okay staalkaasoo dhan waxbay sii cuslaynayaan waxa soo culays wada keenay waxa isaguna culays labaad keenay labadii iskuul ee boarding ah ood weyne iyo beer waatii la xidhay xiriir military laga dhigay maxaa ku maxay markaa dee maxaa ku yaala wax allaaliyo wax markaa inoo yaala meeshii diijiyadii lagu leef iskuuladii lagu leef waxaan aad u xasuusanay cabdillaahi I don't know dadka inta badan kulli reer Hargeysa ama howlaha guud beriga ka shaqeyn jiray ama militariga aba garanayay xeradan Birjah horteeda xerada Birjah horteeda waxa oo li jiray motor ruuga tan jayga jijibisa marta crusher oo yar oo very primitive oo ingiriisku uu marka guryaha dhisho uu ku jijibin jiray halkaas ay u jirtay hawar baa loo raray 1964 believe me hamar baa loo raray hamar laga rabaa hamar looga baahay yani ilaa heerka ayaan xitaa ciribtir yani wax allaaliyo xulbuug leeyahay wax yaala midna ma aani jiro dabadda adigu xabiya ku daalin arrintii way fiday saraakiishii deerin waliba ninkii uu garanayay magarasha uu ku kalsoonaa ayuu wax gaarsiiyay wax buu gaarsiiyay dareenkii baa aad kordhay dabadna lixdan laga haystay oo laga wareejiyay markii hore hoggaanka wax la geeyay taangeed muddo yar buu ku joogay ayaa la beerta galay واتي وكالة يقدر الجورج تبدأ وكيل رخصيستي وكيل رجيش يسكت وكيل رجيش من بيرت كشقي المشكلة تتهري أنا قاعد ما يساه ما نفضل بواحد شو يبي رجع هذا بدره و 1975 كآخر كيسي قولي إلى محمد هلا أحمد محمد هلا حرادي بوليسك ayaanu fariisan jiray inta badan halkaas rag badan isugu yimid aad u badan oo aan ka sii xasuusanahay Ahmed Maxamed Hala Abdullahi Jaamac Yusuf nin loorin jiray korneelka ahaa gaadiidka ahaan jiray Abdullahi Askar Abdullahi Jaamac Galaal Aadan Saleebaan Aadan Maxamed Samakaab rag badan oo aan u maray markii Iran maanta dhow iyo 10 ahayn وأنا بقول إذا أنت وركي خالد ويران صوب إنه أنت عسين مير سقطي مع طبعا أنا يا هاي هالك الشغل و 1975 كآخر كيس عن فيلين يا منظور ببسدي صبر بيه ويا خوري أنتو ديروا توي كاسين بعد كاس بدنا وحلري أرنتي صوتي ليه لنا نبتشر الله يحفظه وأنا نبتشر الله أبسوليت وأمركوا هرجسوا شو بقولوا وردي ميرو نسبة يوم مرساي محا كوحيجا استب كان ينقادني أبابلك كان هو سه يورس كارسين تدستا الله في دنيا أنت في ذا شو محا كوحيجا أوكي إنتنا هالك شو قاعد بقى يعني كشي وريسي وحاول هالجن كان عين وحنا ينور عين وضنه ترى ينوضنه يعني ودي هالجن يحطر ولا ما نبكي هذا أبو إسماعيل نقصه بيري ودي واحد ما قاعد حويرات totally wax magac la yiraahdo sida hawmur xasharaad waa garan dabad xaqii uga gudbinaa waxa looga gudbayaa waa inuu kala qaataa markaa waxba hada kale wax kale ma marin ragiisu wada abaabul sheekadii aad iyo aad baa rag intii badeed ay wala socdaan ciidankii hoose aad wala socdo waliba waxa taa aan aad ugu nuxnuxsanaya ciidanka cirka ciidanka cirka loo jiray وإذا كمان قولي شو بودي جيب شباب مع عسكري مع سركان. شفت واحد هاي عيد من الودي شوقة. وبلي دوغلي هي حمر يهرجي شديد أصلا. ما نكرت عطسنة. ما نكرت عطسنة. إذا ممكن ورك يسلقاري أيار نوعين. رجع دين أنت بجلس إيش وكل عيسنا. إذا رجع شقين أنت وشقين يوش وده أشرو ولا شو ذيقين. إذا كاش مركبة. إذا أبابلن. أيونه. أنا دققت مرة. دققت 7 ما دققت 7 ثاني أيها هرجي يا وتحسب الاسم أيها وتبدنا قبله سكرتانية شيء شاطليني وتيلينو وحب الحسبي
هون اللي بلد سموتين وكثر الدم الألبا له إسماعيل وأنا كسيف فوقينيس هذاك وهايستيه كل شيء سريع كعنك وكسي فوقينيس وكسي كلا فوقينيس ومركا حسب واحد مودسي إنه معارض عادي يبقى أصاب حي absolutely بدنا 1976 جولاي أيام waxaan u soo baxay markaa Hargeysa saraakiil badan baa naga joogta xoogaa ciidan Irahan naga jooga saraakiisha ciidanka dhulkuna way badnaayeen dabadna waxay noqotay waa ragga waxba la gaarsiin beersanina lama arago iyo axmar ma imaadaan dabadna julaay baan anigu waxaan u baxay inaan imtixaan askar ka soo qaado Hargeysa oo askarta waxay soo galayaan dugsiga ciidanka cirka ayay soo galayaan technique oo mechanic ayaan u diyaarinayna mechanics baan meesha la saaraa dabadna halkaa waxaan ugu tegey ninka la yidhaaho محمد عبد القادر عصير عصير بيضيفوا يغني محمد ما يغني محمد عبد القادر محمد عبد القادر عصير عبد القادر عصير عبد القادر بيضيفوا يغني عصير عبد القادر نينك اللي هو يوسف محمد ديري أفكار هاي يوسف محمد ديري نين اللي وريد شري وودين تيبان اللي يقولوا بركضوا قارو كردعي إنا شحاري إنا على شحاري على شحاري أدب خلقني شري لك كاد صدح دانين ayaanu maalin waxaanu fadhiisanay gurigii shacabka ee uu ku jiray marka Casayr maalina waxaanu fadhiisanay guriga ku jiray ninka la yiraahdo Yuusuf Maxamed Diiriye oo guriga xisbiga ee idaacada agteeda production iyo Ali Abdi yusoo qabo injineerka Ali Abdi ciidanka cirka Ali Abdi Yusuf Ali Abdi Yusuf ninka la yidhaaho aadan cali abyan ay ingiriis ku dhigan jiray saraakiil badan baa meesha joogtay dambaalkii anigu fariinta baan gaarsiiyey dhambaalkii baan gaarsiiyey anaa waryaaro nimanka nin walba gidaar laga helo dhowdadii haddaydan isu buulan oo isu ururin oo aydan is ogaanin oo aydan isxaal ogaanin oo aydan dibina dee wax iska ilaalin oo indhaa furin dee nin walba gidaar unbaa lagu tooganaya sidii qowyo kale gidaar lagu toogto 1976 way nool yihiin marka Casayr iyo ninka la yiraahdo maxay soo diriyay ladu waa nool aadan u baa bashka baxay iyo ila xaari marka horta Cabdillah arintu sidaas ay asaaskeeda hor soo ay asaaskeeda soo 1976 77 markii uu yimi ayaa horta ragga intii badnayd si wanaagsan indhaha u kala qaadeen waayo waxa isdhex galay nimankii inqilaabka watay iyo dagaalka laftiisii waxaa ka horreysay 1976 ka qodobka hore ka dhaafay 1976 maalintaan kule waanu badnayno waanu shunimin ayaa la yidhi war haddii ay noqoto in aynu baxno oo jabhadayno xagee loo baxaya xagee loo baxaya labada waddan hareeraha iga xiga waa Ethiopia iyo Kenya ma Ethiopia u baxayna Kenya u baxayna dabad maanta discussionkaas wuu dheeraaday laakiin wuu soo afkooay markii dambe oo Kenya haddii xaggaa la qabto waxa weeye dhul taqaan maaha raggan meesha fadhiya nin aan dee miyigeennii hawdkeennii soo tegin oo ama geel ku racayn ama reerkuu dekin balligii baad garanaysaa dhulkii baad garanaysaa dadkaagina way joogaan dhaawacaagii meelaad dhigataad helaysaa markaad gaajato waxaad cuntaad ka helaysaa laakiin halkaa waxba kuma yaalin waxba kuma yaalin rag baa markaa waxay ku doodeen maya dadka deegaankaynu abaabulayna waa dad deegaan laan meesha ku dhimanay deegaana meesha kuma yaala horta taana go-aankaa Ethiopia loo baxayana maalintaas ku gaadhay waa 1976 dagaalkii sida ma jirin dabeedna marka ciidan hogaamisan ma jirtay
واسمنتي waanu sibannahay markaanu doonayno wax information oo yaraa ma garanaysaa ama naga yar burugto in hala umba Axmed Maxamed hala ayuunba Ismaaciil oo isku kalaas ahaayeen iyo mooyinu ka horreey garmaayeen dib soo dhowtaa ogowna waxay ahayd arrin circle labadaas saddexdaa nin ee Saleebaan Nuux Cabdi Ismaaciil Dushe iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdalla Kharbud saddexdaa nin civil bay ahaayeen ciidamada kale waa wada military aan ahayn inaha la booliska inkaas kaleena nagala soo dagaalkii 77 ayaan galay dawladahayagii waxaan la keenay qaarna waxaa la keenay Hargeysa qaarna waxaa la keenay Berbera halkaasna sheeko aan magaraysaa qurux badnayn ayaa ku jira sheekooyin aan qurux badnayn baa halkaa ku jira in fact waayo ciidankan runtiina marka loo taariikhda dib loogu noqdo ciidankii cirka ee jamhuuriyaddu Soomaaliya waqtigaa ciidan dagaal u tababaran mu ahayn completely ciidan dagaal u tababaran may ahayn wuxuu ahaa ciidan bilootayaashiisa loo tababaray deg kac halkaa firaash yaraa halkaa maartay meelaha markaa baalan ma ahayn xafladaha oktoobarada iyo waxaas munaawaraadka yar mooyaane unless alle waxa ahayd dawladda 17ka waliba bilootayaashu way kala jireen bilootayaashan ku duulayay 17ka ee markaa yaryaraa ayaa ku roonaa Yuusuf Maxamed Diiriyaa ayaa ka mid ahaa isagoo nin yaro kale oo Yuusuf Maxamed loo jiro isagoo reer galkaayada ahayo raggaas oo dhalinyaro ah way fiican mayna channel ina 20 wakay ahaayeen 20 ka inuu ku ogaaba loo dilay kuwaas si toos ah ragga loo leeyay dagaalkii iyagu galay sidaydaba anigu markii hore ma taabanin waxaan aan ruushka ka soo bartay waa wax dila waa rasaas waa bam waa gantaal waa miino wax qarxoon baan anigu soo bartay dawladaha kacay ama bomber ha noqoto ama 17 ha noqoto ama 20 ha noqoto mid aanan ama anigu ku xidhin ama aanan chegarinin kama fadin airportka Hargeysa dagaalkii baa sidii lagu qabay saraakiisha tan waaweyn korneyl abaa jooga buwa korneyl fulkalaas anuu kabtanaanahay markaa walla habeenkii dakalkaas lagu maalintiina meelaha la wareegayo magaalada qaad loo dooranayo habeenkiina xafiis halkan la furanayo turbal salaxnaya wariyaale aan ciidankan meel dagaal ku jiro wala ciidankan meel dagaal uma boodba min baa jiray Maxamed waxaa la oran jiray ciidanka cirka oo sageliya magaciisi wuu salaadu intuu kaco ayuu guryahan hurdo saraakiisha hurdo ayuu halkaa hortooda mari jiray salaada hore intuu kaco wuxuu oran jiray war dagaalyahanow waa Soomaali galbeeday waa Soomaaliyey war ka kacay salaada hore ayuu oran jiray dayarad miig 21 ayaa xumaatay si ku ilaa ku duula markaan ogaanay meesha balaa ka socoto dayradii gariiraysa markay arka gasho biloodkii ku duulaaba oo leeyahay gariiraysa dayraddu dayradii celideedii baa garawaa ruushka loo markii ruushku aynu kala baxnay ruushku Itoobiya xaga qabta dadka loo Soomaalida dhaanta ma jirto dayradii oo halka kooraha dambe runwayga waa dhufaysyada leh halkaa ku jirta ee la yidhi yaa geel soo hadlay waxaa markaa wada jooga markaa bilootaha iyo nin loola jiray
حسين علي ميري وأي جنرال كي محمد علي ميري أي حد طب إستانبول يشوفه يلا سؤال وقوار عصر about 3:30 meelahaas wuxuu ku keenay ilaa iminka ma garan waan garan weyn telefoon soo diro markaasuu yiri yaa istaanbayda ku jira markaasuu yiri maxamed cali yusuf ay xuseen almirey iyo ninka kala bilotaha markaasuu yiri wax ku jira bilotaha dayarada ku ka waxa geeyo ka markaasuu yiri soo tijaabi hadda toddoba goor hore la tijaabi وانا قيل وقال لي مركا قال لي انفع انه ونكي محكمه قدوميه محكمه بدباده قدومي wuxuu gool labada علي سباتر iyo god علي سباتر iyo ninka leeyahay qeel leh godkay ku jiraan god halkii bartii hogaaminta ayay ku jiraan way ka beddelaan markii mid baqay kala jooga ama labadooda joogaan waa gartay marka si dadkuna ay u fahmaan ninkuu yahay qeel leh sax wadada qudoomiye maxkamadii badbaado maxkamadan go'aanka riday qudoomiye isagii weeyaba ku soo wareeyay waa ku soo wareeyay waa ku soo wareeyay ku jiraan دورسي بكتيرا بدنا سكالي وكحدي وردي وحلتكي هنا قربوش يولتكي وردي بركي وان عرنا دوار فرينا وانيجا يونك ليله عبد الرحمن علي فارح يو آذن كاردين تاي آذن علي أبين يني لوري سعيد عبدي شبصت وربنا تاور هكي ان هرجيس تاور كسر ما تاور كما halka yar sare ayaa iska fadhiiraado maxaadeero ay halkaas aanu fadhiyo halkaas waa tuutayal baa gashanaado chat jeedku noogu jira halkaas ku qeylina oo dad taagtaagna after say 10 minutes okay usoo wareegay ina qarbushto gobolka sare halkaa kusoo tijaabtay arrinta markii uu yidhi dayuuradda ha ku duulo ninkan odaygii ayaa xuseen wuxuu yidhi taliya dayuuraddu waa xun tahay markaasuu yidhi ku kacdhe markaasuu yidhi ma amar baa ma amar baa markaasuu yidhi waa amar وكعب markuu laba goor soo wareegay soo wareegay ay soo qustay dam gibti baan ku wareelay markaa dawladda istaagno halkii baan dhinac baan saqiiqo halkii ay ku dhacday isagana ka may waa afartii markaa meelahay dhacaysatay lixdii markay ahayd hadda waa ila qarboosh intay airbook iyo qarboosh jiraan waa garanaya ليه مركي وأنا يدور دقائق مش محاج كوريل مري حامتير مري حابلاي مري أبغى هو بقى وأنا الله ورنيكي مري في منوليا أيضا لحدي مركي محمد شعب الوجه محمد شام علي هذا حسنك محمد إلهي هون حرسته محمد شام علي الوجه ayaa gaari daf iyo mariqa oo xirada taagan ayaa soo wariyaha xagad u dhaaqaysa gaarigu shuuri taliyo waa soo xiray wixii istaag inuu maray yuu xagee mushaan meeshii diyaaradu bartayri intii ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan aw Al Farax oo uu nool yahay yeesta daaqada ku soo booday gaari jabka soo qabsay markuu isagu soo qabsaday yaa Xuseenkii diyaaradda ee amarka la siiyayna سورة دي نحن صوص ورد مركا وين عايزة ورد مركا من قربوش تاجنبه حوارك بين ومدو وريار برهم وريار وتدري هذه ورهم ديار عنك شو كسيرة وهذا معك قربوش عايزة نبيو ما تحسك كده سبحان الله العظيم حرب هذا الله حرب الله هاي يرميك بإذن يرميك بإذن ونكو هدو دي كينا ونسوا على هذا قربوش عايزة هذا على أي حال بلدنا. ولي ما ضحدينا ما بيصير غادي كم سنة. ولا كت.
midkaygii baa soo qaadan oo ay fadhatashteen oo tuutid iyagu waxay ku garteenna waraaq baa jeebkaa ugu jirtay jeebkaa hoose shaarka cabdilaahi waan ku noqonnay halkiina horeynu maraynay waxaynu maraynay isagoo mayd goobtii tagteen gabalkii idin dhacay reer miyigii idinka cawday oo idin waar xaggaa qabateen si fiican dabeetana ninkii oo meyd ah ayaa hesheen dabeetana jeebkiisa waxaa tiri warqad baa laga soo saaray dadku malaa waxay moodayeen baalada xabashoo soo dhacay absolutely beriga aad waxaan u dandeeyay ruux xabashoo absolutely waxay moodayeen dayuuradan in Ethiopia leedahay soo dhacay beelad kale in Ethiopia yahay kuna uu casaab hoogta dabeedna way bilaqaysteen isaga laftiisa bilaqaysteen tuuti bay kala baxeen tuutaa shaariisro bago hoosay moogta tuutaa ku duulay helmadkii bay ka qaateen bastooladii way ka qaateen kamii bay kala baxeen isagoo kabala bar soo dabeedna annaga bay canaan markii daba bastooladii way kaadheen laakiin canaan bay annaga tarajaa nagaga dhigeen waanu istaahliday kuridu dee madax baanu lahayn madaxdayda haddii dhaqaaqi weyday minshaagiina soo yaacno gar bay noqotay adigu ninkii qaadii meydkii dibadda cusbitaalka gurub hospitalka ayaa la geeyey dabeedna maalintii dambe lagu naastay kaa waxa ka iyana ka horreeyey ka dambeeyey ninka la oran jiray maxamed cabdilaahi janaale iyo ina la oran jiray barre oo aan jecelahay inuu reer baydhaba ahaa eelkicii dayuuradan looma sheegin mishanka ay u kacayso laba dayuuradood kiciya baa la yidhi laba dayuur baa la kiciyey labadii dayuur markii la kiciyey ay cirka ku jiraan waajib ma haystaan mishan la siiyey ma jiro ayaa la yidhi cusbitaalka jigjiga ciidan baa ku jiree garaaca dayuuradaha kan labadan dayuuroodna waxaa ku xidhan gantaalihii cirka gantaalihii cirka ayaa ku xidhan maaha gantaalihii cirka dhulka way kala duwayn mogta oo dee gantaalkan cirka laga tuuraya dhulka laga tuuraya effect oo loogu talagalay qoladan iyadan sibilka waxaanu moodnaa uun الله كفتمانية الليلة waxaan moodayay in bahaluhu inay dadka wada dilaan oo isku mid yihiin qofkii uu dilaya haduu ku dhaco laakiin khasaaraha uu geysanayo yaa kala xun oo midna waxa loogu talagalay dad dayuurada ku soo weerartay iska jecel midna waxa loogu talagalay yool dhulka ay ku baabiso dibadna bilotayaashii markii cirka galeen yaa la yidhi garaaca dhulka mishankaas yoolka haddii markii cusbitaalka jigjiga ciidan baa ku jira oo saraakiil iyo waxba waa lagu shirayaa kudhufta waan hubkaanu sidana way ogyiin moogta laba bilood ogyiin mashiin kantaalaha noogu xidhan waxa weeye cirka ma dhulka dhulka at the same time geela haddana amarkii bixiyey sida buuri ku garaa salaare kaasida taa ku garaa okay janaala soo galay isdaba socda diyuurad moogtay janaala soo galay labadii buu ku riday labadii shitiib uu ka baxay yarkii baa soo galay labadii buu ku riday yarku markuu ka baxay yaa si giftada laga dhuftay wala la hadhaynankii diyuuradii dam janaala la yirido laba isugu tagtay janaala wuu in fact wuxuu ahaa ragga yani shakhsiyaadka ay Ethiopia aad iyo aad u hadal hayeen hadii kor dabadna laba isugu tagay xagga la sigcili wuxuu ku rida malay muxuu ku ridaa ilaa kan riday labadii gantaal soo kala iska tuuray maahay mal shaytaan laga tuuray aakhirkiis ku dhufteen gedna xagga sare ka martay bana xagga hoosta wali soo celiyo shaqo ku dhufteen dhulka la dhigay marka dagaalkii waxaan aragnay dagaalkani talabaad ninkii la oran jiray bocooshe ayaa noo fadhiyay raadarka